waa mar kale iyo barnaamijkeena tala dhakhtar oo aynu ku soo qaadan doono jeexjeexa maqaarka ku yimaada oo loo yaqaano stretch marks. haddaad ku cusub tahay channelka ka mid noqo asxaabta channelka lana wadaag barnaamijyada caafimaad ee halkan soo gelin. jeexjeexa maqaarku waa nooc nabar ah oo soo baxa marka maqaarkeenu kala baxo ama uu kala jiidmo ama uu dhaqso u yaraado ama uu isku soo ururo. isbeddelka maqaarka ku dhacaya wuxuu keenaa inuu dilaac ku yimaado laba maado oo jirkeenu leeyahay oo loo yaqaano collagen iyo elastin oo taageera maqaarkeena. kadib kala jiidanka ama kala baxaas jeexjeex baa ka soo muuqda maqaarkeena waxaana loo yaqaanaa stretch marks baa loo yaqaan. qof kasta ma yeesho jeexjeexan. heerarka isbeddelka hormoonada ayaa u muuqda inay door ka ciyaaraan imaatinka ciladan. waxaad sidoo kale yeelan kartaa khatar sare haddii dadka qoyskaagu ay hore u lahaayeen jeexjeexa maqaarka. haddii aad isku aragto jeexjeex maqaarka ah waxaad u badan tahay inaad leedahay ama aad ku sugan tahay xaaladahan. kobaca korniinka ee dhaca xilliga qaangaarnimada ama pubertyga. isbedelada dhaca ay ka mid uurka waa waxa ugu badan ee keena ciladan stretch mark loo yaqaano. miisaanka oo yaraada ama kordha si degdeg ah adigoo buurnaaba mar kaliya miisaankii hoos u dhigtay ama adigoo miisaankaagu fiicnaaba mar kaliya miisaankaagu hoos u dhacay. labadaas waxay keenayaan maxay in ay calaamadahan ama jeexjeexa maqaarku ay ka soo muuqdaan. jimicsiyada sida birqaadista iyaduna waxay keeni kartaa ciladan. isticmaalka kiniinada la isku naaxiyo sida corticosteroidka kuwa loo yaqaano waqti dheer sidoo kale waxay sababi kartaa jeexjeex maqaarka ah. haddii aad qabto cudurrada ay ka mid yihiin Cushing ama Marfan syndrome waad yeelan kartaa ciladan. markaad yeelatid jeexjeexa maqaarku wuxuu u muuqanayaa ama jeexjeex waxay u muuqanayaan kuwa casaan ah, guduud ah, casaan bunni ah ama bunni mugdi ah taasoo ku xidhan hadba midabka maqaarkaaga. cuncun iyo maqaarka oo ka soo yar kacsan jirka intiisa kale waa calaamadaha u horeeya ee la arko. waxaa ka takhalusi kara jeexjeexa maqaarka ama biin kara. sida nabar kasta jeexjeexa maqaarku waa mid joogto ah laakiin daaweyntu waxay ka dhigaysaa mid aan la dareemi karin. daaweyntu waxay kale kaa caawin kartaa yaraynta cuncunka. waxaa muhiim ah in qofku ogaado in hal dawo oo keliya marmarka qaar aanay anfici karin iyadoo sidoo kale ay jiraan daawooyin badan oo aan waxba ka tarin ciladan laakiin dadku adeegsadaan. haddii aad rabto inaad isku daydo mid ka mid ah kariimadan ama lotionkan ama gelkan si aad ugu dawiso jeexjeexa waa inaad hubisaa inaad isticmaasho marka u horeysa isku aragto ciladan. waayo haddii jeexjeexa maqaarkaagu raago dawadu wax badan kama tarto. mari kariimka maqaarka oo ku dug maalin kasta dhowr week waqtina way qaadataa inaad isbeddel isku aragto. labadan dawo ayaa la ogaaday inay waxtar u leeyihiin la tacaalidda ciladan waana hyaluronic acid dawada loo yaqaano kariimka loo yaqaano iyo tretinoin iyo dawada kale loo yaqaano tretinoin. procedures bay sidoo kale dhakhaatiirtu adeegsadaan iyagoo ay ka mid yihiin kuwaas chemicals qaar laser iyo qaar radiation la isticmaalayo inkastoo waxtarkoodu aanu wanaagsanayn ama uu aad u yari. ugu dambeyn ciladan dhibaato caafimaad oo muuqata ma laha marka laga reebo cuncun yar xilliga hore iyo in qofkii uu arkay in maqaarkiisu foolxumo soo gaadhay. haddiiba aad iska daaweynayso fadlan ha qaadan daawo ama kariimo aan dhakhtar kuu qorin waayo ciladan aad ka cabanayso mid ka daran bay kugu keeni karaan dawooyin aan aqoonteeda la garanay haddii aad isticmaasho ama aan waxba ka tarin xanuunka. caafimaad qab baan idin rajaynayaa wabilaahi tawfiiq.